kulanti wacan daawadayaal halkan waa channelka Halgan Media kusoo dhawaada daawadayaal wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya iyo caalamka wadamada ugu waaweyn warka subaxaad ku daawan doontaan waxa kamid ah kusimaha ra'iisul wasaaraha Soomaaliya oo wasaaradda maaliyadda faray in lacag laga bixi karin bangiga dhexe ee dalka wuxuu yahay ujeedka socdaalka ee madaxweyne Qoorqoor ee Muqdisho iyo Waare oo isna soo gaaray caasimadan maxaa ka jira in internetka Soomaaliya loo jaray arrimo siyaasadeed awgeed wararkii ugu dambeeyay ee xaaladda guud iyo qasaraha ka dhashay go'itaanka internetka ayaynu idin eegi doonaa iyo sidoo kale warar kala duwan oo ka soo baxaya kulamo xalay ilaa iyo saaka ka soconaya filla Soomaaliya iyo farmaajo oo soo magacaabaya ra'iisul wasaare cusub daawadayaal qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku daawan doontaan warka subax ee Halgan Media wallan daawadeen haddii nagu cusub tahay subscribe bixdan balan sababta shaqadii ugu dambeeyay Soomaaliya iyo caalamka markana u diyaar garooba qodobada warka aad daawateen oo dhameystiran kusimaha ra'iisul wasaaraha oo wasaaradda maaliyadda faray in lacag laga bixi karin bangiga dhexe ee dalka Mahdi Maxamed Guuleed Qadar oo maalin ka hor loo magacaabay kusimaha ra'iisul wasaaraha dalka ayaa tagay wasaaradda maaliyadda isagoo wasiir Beyle la wadaagay amar ka soo baxay xafiiska madaxweynaha dalka oo ah inaan wax lacag laga bixin karin bangiga dhexe ee dawladda ilaa xaalad jirta laga baxayo oo xukuumadda laga dhisayo sida ay Halgan Media u sheegeen ila xogaalaha kulankaasi goobjoog u ahaa kusimaha ra'iisul wasaaraha dalkan Mahdi Maxamed Guuleed Qadar ayaa la sheegay in uu Beyle siiyay amar ah in la joojiyo lacagihii laga bixin jiray akoonada wasaaradaha maadaama wasiirada xafiiska ku joogaan si ku meel gaar ah isla markaana ay suuragal tahay wax isdabamarin in ay dhacdo intii aan ku sugnaa wasaaradda maaliyadda wasiir Beyle ayaa siiyay warbixin ku saabsan dib u habeynta maaliyadeed kararka dakhliga gudaha miisaaniyadda iyo ka jawaabista cudurka COVID-19 ayuu bartiisa Twitterka ku soo dhigay Guuleed kusimaha ra'iisul wasaaraha dalka kusimaha wasiirka wasaaradda maaliyadda ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beyle oo xaqiijiyay in uu la kulmay kusimaha ra'iisul wasaaraha ayaa sheegay in uu kala hadlay dargelinta dib u habeynta maaliyadeed ee dalkan Soomaaliya waxaan ka wada hadalnay dargelinta howlaha maaliyadda sida dib u habeynta dhaqaalaha sare u qaadida dakhliga dalka iyo saameynta dhaqaale ee Covid ayuu wasiir Beyle ku daabacay bartiisa bulshada qayro xilka la qaaday isagoo aan ku sugnayn Muqdisho ayaa go'aan golaha shacabka ku tilmaamay mid sharci darro ah oo loo marin hanaanka xukuumadda kalsooni looga noqon karo xaaladda siyaasadeed ee dalka ayaa hadda mid aad u cakiran marka la fiiriyo kala dirista xukuumadda iyo shaqooyinkii socday taas oo siyaasiyiinta iyo dadka falanqeeya arrimaha siyaasadda Soomaaliya oo fasalan ka inay tahay dib u dhac markale dalkan lagu halagalayo taas oo eed u badan dusha loo saaray madaxweynaha dalkan Farmaajo iyo gudoomiyaha baarlamaanka gaar ahaan golaha shacabka iyo ku xigeenkiisa Maxamed Sheekh Cabdiraxmaan iyo Cabdulle Sheekh Ibrahim Muudey muxuu yahay ujeedka safarka socdaalka ee madaxweyne Qoorqoor uu ku yimid Muqdisho iyadoo dhinaca kalena Muqdisho uu soo gaaray madaxweynaha Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor ayaa waxa uu soo gaaray magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya maalin kadib markii xilka laga qaaday ra'iisul wasaarihii hore ee dalkan Xasan Cali Khayre Axmed Qoorqoor ayaa waxa garoonka diyaaradaha Muqdisho ku soo dhaweeyay mas'uuliyiin ka tirsan dawladda oo ay ku jiraan xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya socdaalkiisa ayaa kii u horeeyay oo Muqdisho ku yimaado tan iyo markii loo doortay xilka madaxweynaha Galmudug bishii Febraayo sanadkan 2020 wararka qaar ayaa sheegay in safarkiisa Muqdisho uu la xiriiro arrimo caafimaad iyadoo lagu wado inuu Turkiga u ambaxo dhawaan Qoorqoor warbaahinta kula hadlay garoonka diyaaradaha Muqdisho ayaa sheegay in socdaalkiisu salka ku hayo la tashi wala yeelanayo qaybaha kala duwan ee bulshada isagoo amaanay soo dhaweyntii loogu sameeyay magaalada Muqdisho dhinaca kale madaxweynaha Galmudug Qoorqoor ayaa la filayaa inuu madaxtooyada filla Soomaaliya kula kulmo madaxweynaha jamhuuriyadda Maxamed Cabdullaahi Farmaajo labada dhinac ayaa ka hadli doona arrimo kala duwan oo ku saabsan isbeddelka siyaasadeed ee dalkan ku soo kordhay gaar ahaan xilka qaadista ra'iisul wasaarihii hore ee dalkan Xasan Cali Khayre wararka qaar ayaana sheegaya inuu ka hadli doono arinta magacaabista ra'iisul wasaaraha cusub dhinaca kale madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare oo dhawaanahan ku sugnaa Dhuusamareeb ayaa casliqadkii soo gaaray magaalada Muqdisho garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada Muqdisho ayaa waxa uu ku soo dhaweeyay
wafdigan madaxweynaha Hirshabelle xildhibaano ka tirsan Hirshabelle siyaasiyiin iyo mas'uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya waa madaxweynihii labaad ee ka tirsan dowlad goboleedyada dalkan ka jira oo soo gaaray magaalada Muqdisho kadib xilka qaadistii ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Kheyre waxaana warar ka soo horeeyay madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qorqoor iyadoo dhawaan la filayo inay caasimadan soo gaaraan madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Laftagareen iyo mas'uuliyiin kale ka tirsan maamul goboleedyada dalka lama oga ilaa iyo hadda ujeedka rasmiga ah ee loogu yeerayo mas'uuliyiin dowlad goboleedyada dalka iyadoo lagu ballansanaa in 15 bisha socda Agoosto lagu kulmo Dhuusamareeb si looga sii hadlo arrimaha doorashooyinka ee dalkan maxaa ka jira in internetka Soomaaliya loo jira arrimo la xiriira siyaasad iyadoo sidoo kale hoos dhac dhaqaale oo weyn laga dareemay guud ahaan Soomaaliya wasiirka wasaaradda boosada isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda ee xukuumadda Soomaaliya Cabdi Canshuur Xasan ayaa faa'iin ka bixiyay adeega internetka oo gabi ahaanba ka go'ay shalay magaalada caasimadda ah ee Muqdisho ugu horeyn wasiirka ayaa beeniyay in dowladda Soomaaliya ay internetka u jartay arrimo siyaasadeed kadib markii ay soo baxeen warar sheegaya arrintaasi wasiir Canshuur ayaa carab ku dhuftay in cilad aan la filayn ay ku timid fiilada fiber optic ah ee soo dhex marta badda hoosteeda sidoo kale wuxuu tilmaamay in haatan lagu howlan yahay in la ogaado ciladaasi iyo meesha ay ka dhacday si loo farsameeyo waxa si cad u sheegaya waxa dhacay waa cilad farsamo laakiin ma ahan cilad siyaasadeed iyo howlo kale ayuu wasiirka boostada Soomaaliya uu yiri sidoo kale wuxuu intaasi ku daray wasiirku in dowladda Soomaaliya aysan dhibaato ku hayn shacabkeeda isla markaana loo baahan yahay in aan la iska eedeyn tiknoolajiyadda aqoonta iyo waxyaabaha dhaqaalaha sameeyayo marna dowladdu ma siyaasadeyso ayaa halkiisa sii raaciyay wasiirka adeega internetka oo inta badan ba ku xiran yihiin dadka Soomaaliyeed ayaa maqnaanshihiisa wuxuu saameeyay koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya waxaana sidoo kale jiray khasaare badan oo ka dhashay walow aan la shaacin karin inta uu leeyahay balse dadka inta badan ku shaqeeya arrimaha internetka ee ganacsiga sida bangiyada iyo sidoo kale xarumaha kale ee internetka ee dalkan ayaa sheegay in ay khasaareen isla dhaawac weyn uu ku yeeshay internetka maqnaa shaqooyinkii ay bulshada u qaban jireen sidoo kale waxaa jira wasaarado iyo xarumo kale oo iyana internetka uu saameeyay taa oo iyana ay ku dhacday khasaare maaliyadeed sida xogaha aynu ku helnay ilaa iyo hadda si cad looma hubo sababaha rasmiga ah ee ka dambeeyay internetkan ka maqnaa Soomaaliya labadii cisho ee ugu dambeysay taas oo saameyn weyn iyo qalqal mar kale ku abuurtay shacabka Soomaaliyeed iyadoo tan ay ka dambeysay kadib markii xilka laga qaaday ra'iisul wasaare Kheyre isla maalinkii xigayna hawada uu ka baxay guud ahaanba internetka Soomaaliya taas oo shacabkii siyaasiyiintuba ay siyaabo kala duwan u fasirteen ugu dambeyntiina waxaynu eegaynaa wararkii ugu dambeeyay ee kulamo ka soconaya xalay ilaa iyo saakay filla Soomaaliya iyo madaxweyne Farmaajo oo soo magacaabay ra'iisul wasaare cusub madaxweynaha Soomaaliya ayaa wada kulamadii ugu dambeeyay ee uu ku doonayo inuu ku soo xulo ra'iisul wasaare si degdeg ah loo soo magacaabo muddo yar oo kadib iscasilaadii Kheyre oo ay sidoo kale baarlamaanka codkii aqlabiyadda ay kala laabteen warar aynu ka helnay filla Soomaaliya ayaa sheegaya in xalay ilaa iyo saakay ay socdeen kulamo iyo la tashiyo oo madaxweynuhu la lahaa siyaasiyiin iyo shakhsiyaad kale oo daneynaya xilka ra'iisul wasaaraha dalka waxa kale oo madaxweynuhu kulan gaar ah la qaatay gudoomiyaha baarlamaanka dalkan Maxamed Musa Sheekh Cabdiraxmaan iyo ku-xigeenkiisa koobaad Cabdulle Sheekh Ibrahim Muude iyo shakhsiyaad ka tirsan xukuumadda Soomaaliya oo ugu horeeyo kusimaha ra'iisul wasaaraha dalka warar uu helay halgan media ayaa sheegay in madaxweynuhu doonayo in muddo 7 gudahood uu ku soo magacaabo ra'iisul wasaaraha cusub ee dalka iyadoo ay jiraan liiska musharaxiin badan oo xilkaasi u taagan madaxweynaha wuxuu ra'iisul wasaaraha ku soo magacaabaya muddo 7 gudahooda ka hor inta uusan safar dibadda ah u bixin ayaan ka soo xiganay ilo wareedyo aan ku kalsoonahay oo xogtana la wadaagay lama sheegin halka uu safri doono madaxweynaha laakiin waxaa jira warar sheegaya in madaxweyne Farmaajo ay wada hadal telefoonka ah yeesheen ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed isla markaana uu casuumaad rasmi ah ka helay asika saba kulamada ila tashadii madaxweyne Farmaajo ku soo magacaabayo ra'iisul wasaaraha ayaa wali soconaya lamana oga nooca ra'iisul wasaare iyo qofka loo magacaabi doono xilkan muddada 6 bilood ka harsan iyo qofka qaadi karta mas'uuliyadda dalka inay ka hirgelin karto doorasho qof iyo coda waxa guud ahaanba siyaasiyiintii shacabka Soomaaliyeed u dhigtaagayaan ra'iisul wasaaraha la magacaabayo iyo shakhsiga uu noqon doono iyo hadii dalkan uu ka samata bixin karo xaaladda cakran ee siyaasadeed oo lugaha uu kula jiro dalkan Soomaaliya
guud ahaanna daawade waa naga inta warkaas waxay halgan media tan iyo kulan dambe nabadgelyo.